tani markii ay go'aamiyeen guddida arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska Mareykanka inay Somaliland ka madax bannaan tahay Soomaaliya ayaa waxa socda dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo Mareykanku uu Soomaaliya kaga guurayo iyadoo Washington ka dhex arkaysa danaheeda geeska Afrika inay kor u qaado xiriirka ay la leedahay Somaliland. haddaba maxaynu ka ogaan karnaa afar tallaabo oo cadaynaya in Mareykanku uu aqoonsanayo Jamhuuriyadda Somaliland. warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay kuwaasi oo dhex maray Hargeysa iyo Washington. dowladda Mareykanka ayaa dardar gelinaysa qorshayaal diblomaasiyadeed iyadoo danaheeda geeska Afrika ka dhex aragta geyigan xasiloon ee guulaha taariikhiga ah ku tallaabsaday kuwaasi oo ay ka mid yihiin xasiloonida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda. Somaliland ayaa noqonaysa muraayad ay iska dhex arkayaan wadamada Afrikaanka ah ee aqoonsiga caalamiga ah haysta. marka loo eego muddo 35 sannadood hawlaha ay ku guuleysatay oo aanay suurtagelinin wadamo tirsanaya in ka badan 100 sannadood inay madax bannaan yihiin. kuwanna waa arrimaha soo jiidanaya cid kasta oo Somaliland doonaysa inay cilaaqaad cusub la samayso iyadoo lagu kabayo bagcadda muhiimka ah ee ay ku taalo oo hadda si weyn indhaha loogu hayo. Washington ayaana toddobaadkan aynu ku guda jirno qaaday 2 tallaabo oo ay Soomaaliya kaga guurayso taasi oo muujinaysa inay isugu soo biyashubanayso Somaliland. ta koowaadna waa inay safaaradda waddanka Mareykanka ee magaalada Muqdisho ku taala hoos u dhigtay dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii iyo shaqooyinkii ay sameyn jirtay iyadoo baraheeda bulshada ku shaacisay sheegtayna wax muhiim ah mooyee in aanay jirin warar halkan lagu wadaagi doono. tanina waxa ay ka dhigan tahay maadaama oo warar la soo gudbiya aanay jirin in shaqo la qabanayaana aanay jirin. waxaana ay khubarada dhinaca diblomaasiyadda falaqeeya geeska Afrika sheegayaan hoos u dhigista xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa waxa ay ku xiriirtaa dhaqdhaqaaqyada xooggan ee diblomaasiyadeed kuwaasi oo ka dhex socda Somaliland iyo Washington. tallaabada labaad ayaa ahayd habeennimadii xalay ahayd markii uu weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump isagoo ku tilmaamay inanay Soomaaliya hogaamiye lahayn sidoo kalena ay tahay waddan aan kala dambeyn lahayn. ma aha markii ugu horeeyay ee uu Trump Soomaaliya weeraro balse tallaabooyinkan iska daba imanaya ayaa muujinaya in Mareykanku uu arko inanay Soomaaliya ahayn waddan lala yeelan karo cilaaqaad diblomaasiyadeed taasina ay sababtay inuu hoos u dhigo xiriirka u dhaxeeya Washington iyo Muqdisho. haddaba maxaynu ka ogaan karnaa labada tallaabo ee toddobaadada soo socda waddanka Mareykanku uu qaadayo kuwaasi oo Somaliland guul taariikhi u horseedi doona. dhawaan xeerkii la ansixiyay ee lagu kala saaray Somaliland iyo Soomaaliya ayaa arrimaha ku guda jiray waxa ka mid ahaa in Mareykanku uu safaaradiisa u wareejiyo Somaliland iyadoo gebi ahaanba Soomaaliya shaqo joojin lagu samaynayo. tallaabooyinkaas oo hordhacoodii iminka la arko ayaa ila wareedyo diblomaasiyadeed oo xoogaal heshay waxay sheegayaan in wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ay ku hawlan tahay sidii xeerkan looga dhigi lahaa mid wax ku ool ah oo dhaqan gala. waxaana haatan laga fikirayaa oo miiska yaala sidii 2 tallaabo loo qaadi lahaa iyadoo la kala horeysiinayo. diblomaasiyadaha sida ay qiimaha ku leeyihiin ayaana tallaabooyinkan iyo go'aamadan waddanka Mareykanku u qaadanaya. ka koowaad ayaa ah sidii Somaliland waddanka Mareykanku uu aqoonsan lahaa sida waddanka Taiwan oo kale iyadoo xeerkaasina uu yahay mid haatan hor yaala aqalka Koongareeska oo isagana loo madlan yahay ansixintiisa iyo in Washington ay xafiiskeeda Hargeysa furato sida oo kalena dalaxsiiso xafiiska Somaliland ay ku leedahay waddankaasi oo laga dhigayo safaarad buuxda. tallaabooyinkan waddanka Mareykanku uu qaadayo ee iska soo daba dhacaya ayaana maalinta ay ka dambayso waxay Somaliland u sii dhaweynayaan sidii ay u heli lahayd madax bannaani la isku waafaqsan yahay. wixii wararka ka soo siyaadana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shariicada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956